dhawo Somali American Network waa dhawahay waaya waxaan joognaa Cedar Brian Cole maxaa loo yimid maanta Brian Cole maanta waxaa loo yimid in la xoojiyo booliiska sida aad u ogtihiin booliisku waa midka kaliya nabadda ku dhisan tahay hadduu booliis jiro nabad ma jiri lahayn booliiskina waa sii yaraana sidii waayigii ay dhibaatada u dhacday marka inay waxay u imaadeen booliisna ay qortaan dadkana dee inay waddankii takargaraynayaan oo dhibaatooyinkii maaragtay u taagan yihiin booliis badan si loo helo ay u qortaan waayahay siday ugu baraarugeen dadka Soomaaliyeed ama u aqbaleen inay ka mid noqdaan booliiska wallaahi si aad ah hadda waaba aniga waaba ila yaaban tahay inta aan maanta arkayay oo la qoranayay booliis oo wiilal soo baxeen oo booliis qorteen ciidaas ka badin ani laftigayga deeqa ahaan haddaan awoodo dee ma awoodee ma qoran lahaa waayahay ma waxa qoranaya wiilasha oo kaliya mase gabdhana waa ay jiraan gabdha xitaa waa arkeen waay waad mahadsantahay waxaa garabkayga taagan Jamaal Cusmaan oo ah gudoomiyaha degmada Lixaad lagana soo doortay xaafadan hadda aan ku sugannahay ee Cedar Brian Cole Community Center ayaan waxaan rabnaa bal inaan programkan maanta wax ka weydiino muhiimadda ay leedahay in ay shaqaale ama police ay qorto City of Minneapolis maxay muhiim ugu tahay dadka Soomaaliyeed Assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaal marka waxaan ku bilaabayaa magaalada Minneapolis booliis la'aan baa jirta 250 qof bay rabaan inay hore ka haargareeyaan magaalada Minneapolis saan maysa suubi jirin booliisku warqad meesha ku soo dhigi jiray waa haargareena ay dhigi jireen hadda waxaan ku yiri community-gana saa uma shaqeyso waa inaa keenaa meesha degan yihiin hadda almost 12 qof baa sign up gareeyay oo programkan bilaabaya ay training ay bilaabaanba lacag fiican ba mushaar bay qaadanayaan marka programkan waxaan u baahanahay haddaan Soomaalinahay oo community-ga degannahay inaan ka mid noqono solution-ka magaalada in mar walba dhaho booliiskii aawe booliiskii idinka waay degmadii idinka waay xaafadii idinka waay marka programkan waa markii u horeysay aan suubinay waa markii u horeysay City Minneapolis banaanka u soo baxday oo tiri warkaalay way sanab gareena wiil Soomaaliya aan la joogo oo ka jawaabay booliiska aha waxaan la jooga chiefkii waxaan la jooga commissionerkii marka waa arrin aad u wanaagsan waxaan rabnaa ummadda Soomaalida inay ka mid noqdaan waaxiga nabadgelyada Minneapolis waayahay Soomaali fara badan baa booliis ay tan iyo sanadihii u dambeeyay maxay ku soo kordhiyeen iyaga booliisinka wax weyn ku soo kordhiyeen marka qof Soomaali ah haysatid oo degmadaada ku ilaalinayo de nabadgelyo dareemaysa qofkii waa la hadli kartaa luqadaadii uu ka hadla dhalinyaradii iyo dadkii iyo wax walba uu yaqaana ku xumaantada suubinaya uu yaqaana marka booliis Minneapolis waxa la ogyahay wiilashii hore ku bilaabay xataa Cedar area-da 24ka iyo waa la yaqaana nabadgelyaduna hoos bay u dhacdaa because wiilka Soomaaliga dhigta wax lagu sheegaa luqadii uu fahmaya waxyaalaha wax ka socda marka community-geena waa anagu islaalinaa qof kale oo ajnabiya una ilaali karaa laakiin anagu waa inaan dadkeena badanna waa inaan ka mid noqonaa nabadgelyada magaalada Minneapolis aad baa mahadsantahay Jamaal waa tahay Ibrahim oo isna ka mid ah ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaan wax ka weydiiyay muhiimadda ay leedahay barnaamijkan maanta ay qaybta booliiska ee magaalada Minneapolis ay u imaadeen xaafadda Cedar gaar ahaan Brian Cole ay u qaadanayaan shaqaalaha Ibrahim adiga waxaad ka mid tahay ciidamada booliiska goorma ayaad ku biirtay maxaa ka faa'iiday maxaa community ku soo kordhisay horta Ibrahim Maxamed Xirsi Gudaal waa yaraahaa magacayga Jidaaw weeyaan last time waa arkaysaa in English waxaa ku soo biiray booliiska 4 sano ka hor 4 sano ahaa booliiska markii horena waxaa ahaa program baa jiro community service officer baa jiray oo dadka iskoolka ku jira ma taqaanaa noqon karaan oo part time weeyaan kaaba ku jiray afartiisa ka hor inta booliiska noqon markaan noqday booliiska ma ogtahay xaggan baa ka shaqeynay Cedar Riverside downtown Minneapolis dadka oo dhan way garanayaan xaggan ma ogtahay ma taqaan aragtida la ku arkayo qof Soomaaliya marka guri tagtid oo qabo maamo Soomaali ku garatay in Soomaali tahay oo kale ma taqaana wax kasi ku sheegan kartaa ma ogtahay afkii dib ma ku noqonayo af Soomaaliga kula hadlaysaa ma ogtahay muhiimadda maanta halkan oo joogno dad badan oo Soomaali inaan qorno maxaa the departmentka dad badan bay hire gareynayaan ma ogtahay waxa rabnaa in Soomaali hire gareeyaan si halkan dadka ma kala hire gareeyo dadka ka shaqeynaya dad Soomaali oo ahaadaan oo dadku garanaya oo laagi garanaya wax kasta oo muhiimad weyn weeyaan dhalinyarta ku maxaa ku encourage gareyn lahayn imaata maanta haddii booliis bayna noqon waxaa jirta 911 dispatch qolooyinka 911ka telefoonka qabto kale qof Soomaali ma haystaan they never wali Allah mi haysto qof Soomaaliya markii maamul 911 soo wacdo kale oo af Ingiriisiga garanay language line bal ku xiraa waqti dheer bay qaadanaysaa intaas hadda adii qof Soomaali oo af Soomaaliga ku hadlayo maamada markaa wax ka qabanaysa waxay u baahan tahay help ma taqaan musaacadada u baahan tahay oo u taraysa markaa ma ogtahay
فمهمة بدن بيلاذهاي qof ku eego afkaaga jinsigaaga isku tihiin oo kale oo ku imaado ku caawiya it's a big help aad iyo aad ma santahay